TikTok oo noqday aaladda ugu cajiibsan ee ay isticmaalaan dadweynaha ku dhool adduunka ayaa waxaa la soo jeediyey in gebi ahaantoodba hawada laga saaro telefoonada markaasi aabka ah 7 maalin kaliya ayaa ka dhiban waqtiga loo qabtay inay ka soo jawaabaan shirkadaha Google iyo Apple oo lagula taliyay in telefoonadooda ay suuqyadooda digitalka ah ka tiraan aabka markaasi TikTok oo lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay gebi ahaantoodba xogta gaarka ah ee isticmaalayaashiisa gudoomiyaha haddaba guddiga isgaarsiinta ee federaalka Mareykanka Brenton Carr ayaa warqad uu qoray ku weydiiyay shirkadaha telefoonada in 8 bishan Luulyo ay soo kala cadeeyaan mowqifkooda ku aadan TikTok Google iyo Apple waxa ay muddo dheer shaqaynayeen isla markaana sheeganayeen inay ku hawlan yihiin hab ilaalinta xogta gaarka ah ee macaamiishooda sidaa daraadna waxaan idinka codsanaynaa iminka inaad TikTok ku dabaqdaan siyaasaddiina oo aad ka masaxdaan suuqyadiina digitalka ah ee App Store-ka iyo Google Play Store maadaama ay u hoggaansami waayeen siyaasaddii loogu talagalay haddii xilligaasi ka hor aad tiri weydaan fadlan jawaab gaar ah isoo siiya ilaa iyo 8 Luulyo oo ay ku sharaxan tahay go'aankiisa ayuu yiri Brendan maxaase lagu haystaa TikTok shirkadaha markaasi shaqaalaha shirkadda ee ku sugan dalka China ayaa la sheegay inay si xiriir ah u isticmaaleen xogta dad Amerikaan ah oo ku jira aaladda TikTok aadna u isticmaala Brendan Carr oo warqadda u qoray soona dhigay bartiisa Twitterka waxa uu sheegay TikTok ma aha sida aad u muuqato waa meel lagu wadaago muuqaallo badadaalo ama shaaciro waana qalab wax lagu basaaso maaha mana aha qalab wax lagu basaaso wuxuu soo saaraa tiro badan oo xog xasaasi ah iyo mid siyaasadeedba mid shakhsiyadeedba TikTok wuxuu ururiyaa wax kasta oo laga bilaabo bogagga wax lagu raadsado ee internetka iyo kuwa websayada laga booqdo markaasi dhammaantoodba mas'uulka waxa uu ku eedeeyay isagoo adeegsanaya cilmi baarayaal in TikTok uu adeegsado tiknoolajiyad xusuusin karta wejiga iyo codka qofka iyo inuu xoog ka ururiyo meesha uu qofku ku sugan yahay goobta uu taagan yahay intaba uu TikTok og yahay qofka isticmaalaya fariimahana way ku jiraan qaar aan weli la dirin ama drive iyo sawirro moobillo weliba ku jira taas oo Mareykanku aad uga cadhooday in hawada laga saaro muddo sanada ayay taagan tahay eedda loo soo jeediyay TikTok ee la xidhiidha ku xadgudubta xogta gaarka ah si ahaatee haddii shirkaduhu waaweyn ee warqadaha loo diray ay fuliyaan codsiga arrintan ayaa u muuqata mid saameynteeda ay ku koobnaan doonto oo keliya dadka jooga Mareykanka isbeddelka suuqyada digitalka Apple iyo Google wuxuu saameyn karaa qof kasta oo telefoonadooda ama telefoonadooda haysta meel kasta oo adduunka ku sugan yahay waxaana suurtagal ah in biri aad soo toosto telefoonkaaga oo aan ku jirin TikTok waana macquul haddii ay ka saari waayaan saamaynta ugu horeysa waa in dadka markaasi qabatimay ay waayi doonaan isticmaalkiisa oo ay dad badan ku xidhan yihiin dadka caanka ku noqday ee shacbiyadda badan ku kasbaday waxay lumin doonaan taageero iyo saamayn arrintan oo ah arrin aad muhiim u ah in lacagta laga helo ay meesha ka bixi doonto oo ay dadka lacagta ka helaa noqon doonaan dad bilaa dhaqaale ah oo halkaasi kharshiyadii hawada ka bixi doonto dhaqaalahaan lama mid ah sida bogagga kale ee bulshada ku xidhiidha sida YouTube laakiin muuqaalada tooska ah ee hadiyadaha la isugu diro iyo xayeysiinta ayaa ugu badan lacagaha laga helo TikTok shirkadaha internetku waxa ay ururiyaan macluumaadka dadka sababa badan dartood oo aan laga muransaneyn hase yeeshee waxa walaac leh waxa xogtaasi lagu sameynayo yaa haya oo arki kara maxayse ku dhimi kartaa in qof ahaan haddii si khaldan loo adeegsado mid ka mid ah sababaha shirkaduhu u ururinayso xogtaasi waa inay la socdaan habdhaqanka iyo dabeecadaha macaamiishooda waxay ku doodaysaa ama ay ku doodayaan in taas ay u sameeyeen si ay dadka u soo bandhigaan xayeysiimo saxa oo aan khalad ahayn waxaa laga yaabaa helista ka dhalan karta tallaabooyinka inaysan dad badan hadda ku baraarugsanayn balse ma hawl yara marka aadan u madax bannaanayn maamuuska markaasi ama maamulista xogtaada gaarka ah ee internetka